waxaad ku baaqdeen in isu soo bixi taageerayaashiina aad ugu yeedheen inuu dhowr maalmood soconayo maanta maxaa dhacay maanta laba waxa way dhaceen oo marka hore shantii gobol kale ee aan shalay aanay ka dhicin afar ka mid ah Sanaag Awdal Saaxil iyo Togdheerba isu soo bixi xafiisyada dadku isugu yimaadeen si wanaagsan baanay u dhamaatay wax mashaakil ah oo nalaga soo sheegay ma jiraan magaalada Hargeysa inuu ku sugan waxba kama dhicin iyada maxay isbedelay waxa ilaa xalaytan noo imanayay ergooyin reer Somaliland oo doonayay inay cabashadayada la ilaaliyo wada jirka iyo midnimada qaranka dabeedna dadkii taageerayaasha ah ee xisbiga ee gobolka Murudujeex waxaanu ka codsanay inay soo bixi joojiyaan oo hakiyaan inta ay war dambe naga helayaan oo ergadu ay hawsheeda wadato kuwa kalena maxaad u joojin weydeen haddaad aqbashay way kala horeeyeen iyagoo Hargeysa shalay uu ka dhacay waxa daruuri ahayd inay taageerayaasha kalena soo gaaraan oo iyana ay muujiyaan xafiisyada horaan u dhaqaajinay inay marka ayna intooda sheegaan oo si nabadgelyo ku sheegtaan waana sheegtaan waxna inagu dhacay maxay idin soo jeediyeen marka ergadu waxay dabcan wad garanaysaa ergo hadii ay ku timaado horta marka ugu horeysa isu soo baxayo wixii kale dhaqdhaqaaqa ee labada qolo midba wadaan horta joojiye waa talaabada u horeysa dabeedna waxaanu ka wada hadalnay wixii aanu anagu tabanaynay waxaanu ugu horeysiin intaan wax kale la qaban waa in la sii daayaa madaxda xisbiga aan sifa sharciga ahayn loo xidhay taa markay dhamaatana wixii kale aanu ka cabanayno aan doonayno in la dhameeyo aynu guda galno ergada idin timi ma idinka unba idin timi mise dhinaca kale xukuumadana way soo martay qaarkood waxay noo sheegeen inay dhinaca xukuumadana la kulmeen laakiin anaga waxa taasi namay khuseynin ergada dadka reer Somaliland ee aanu garanayno miisaankooda iyo masabka ay leeyihiin ee noo yimi horta inaanu ixtiraamno oo aanu aqbalaba noo ahaa kow haddii aanay soo marina dee waaba lagu dambayno ilaa imika bal waxaad nooga warantaa dadka la xidhay ee mas'uuliyiintiina ka mid inta ay yihiin madaxda sarsare xogayaha iyo afayeenka waxa kale oo soo gaaraysa in la xidhay gudoomiyihii gobolka Saaxil aanu dhawaanto magacaabnay Sheekh Saleeman Boorame gudoomiyaha garabka haweenka taageerayaal kale oo imka aan tiradooda sugin oo shalay halkan laga qabtay xafiiska iyo agaarkiisana way jiraan ergadan aad la kulanteen laba madaxweyne ku xigeen oo hore iyo guddiga arrimaha bulshada iyo ay ku jiraan iyo dhinacyo kala duwaniba ma waxay idin kala hadleen isu soo baxa iyo sidii loo joojin lahaa arrinta loo soo dabaali lahaa mise waxay gelayaan arrinka waxanba keenay ahaa khilaafka dhinaca xulista komishanka doorashooyinka waxa arrinka la gelayaa waa ka isu soo baxo waxa weeyaan isaga waxay naga codsadeen in aanu hakino in ay arrinka u galaan laakiin arrinka mucdisu la gelayaa waa arrinka dimuqraadiyadda electionka commissionka sharciga iyo ku dhaqankiisa dawladnimada ee aynu labada sanadoodba imika xukuumaddan jirta aynu isla rafanayni